ummad kasta dhaqan bay leedahay soo jireena oo abka ay ku abtirsato cidba jiilba jiil kaga daydo timaha in la deysto waxay ahaan jirtay dhaqan Soomaaliyeed maadaama dalkii uu burburay meel madxaf oo taariikh Soomaaliyeed loo raaco aysan jirin waxaan istusnay inay lagama maarmaan tahay jiilka naga dambeeya si ay u ogaadaan inay jirto caado ummadan iyo dhaqan ay leedahay waa sababta aan oran karayaa sababta anigu aan timaha u deystay saaxiibadayna aan jeclahay inay u deysteen timaha oo waa arkay sida loo dhaqaaleeyay oo quruxda badan yihiin waxaan ku dhiirigelinayaa dhalinyarta kale ee Soomaaliyeed intii meelaha la xiriiri lahaade oo nin ciyaartooy iyo nin kale iyo nin diin iyo dhaqan toon aynu wadaagin intii lagu dayan lahaa in waxaynu leenahay la raad raaco la baadi goob horta dhaqanka Soomaalidu marka la fiiriyo dhaqamada kale haday Afrikaan ahaan lahayd haday Asian ahaan lahayd haday European ahaan lahaydba waa dhaqanka ugu quruxda badan haday ahaan lahayd dhinaca labiska haday ahaan lahayd dhinaca hab dhaqanka iyo haday ahaan lahayd dhinaca noloshaba wax badan buu kaga duwan yahay tusaale markaad fiirisid dhaqamada kale dhaqamo la isku gubay dhaqamo la jirkooda la qalay dhaqamo yaani waxyaabo hadiga xitaa liddi kuga nafsadaada marka la sameeynayo annaga keenu saas ma ku qurux badan yahay waxaan hadda Allah soo abuuray aan ka rajaynaynaa inuu dhaqankeenu Soomaaliyo dib u soo noqdo dhalinyarta dhanba ay midoobaan ay walaaloobaan dhaqanka ku walaaloobaan ayna adkeeyaan ay gacmo is qabsadaan had iyo jeerba aysan ku xirin dawlad iyo dawlad dariba aysan ku xirinba inay dhaqankooda ay muujiyaan ayaan Allah ka rajaynayaa markaan dharka dhaqanka qabo ee markaan dharka caadiga ku labisan yahay bulshada dhexdeeda ixtiraamku isku mid kama ahan waxaan ka ixtiraam badanahay markaan hidaha iyo dhaqanka